gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa xilka u kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan iyo gudoomiyaha cusub ee degmada Kaaraan Mudane Faarax Cadaani Maxamed. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta degmada Kaaraan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, siyaasiyiin, odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Kaaraan. Gudoomiye Yabo ayaa uga mahadceliyay gudoomiyihii hore ee degmada Kaaraan shaqada horumarineed ee uu ka soo qabtay degmada, asagoona gudoomiyaha cusub ee uga baryay in uu xilka la garab galo, waxuuna maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee degmada Kaaraan. marka Cadaaniyo soo dhawow challenge adaga ku yaala waxa wada la sheegana waa ku taala oo mid kasta leeyahay waa bilow ayaan maaragta ay maraysaa inaad dhameystirtidna waa laga rabaa waliba gobolka Banaadirna uu kaaga fadhiyo degmadan inay noqoto degmo bilic leh, wadooyinkeedu dhisan yihiin, degmooyinka asaageeda la tartamayda ama ka horeyda ayaa laga rabaa horta challenge-gaas horta ku yaal. marka aduguna halka hadda waxa ka sheegta 5 bilood wixii loo gaaro inaad shaqo fiican ka qaban doontid oo degmadan aad maanta meesha ay joogto meel ka fiican aad geey doonto. marka ballanqaadkaasna hadduu Ilaahay yiraahdo maaragta waa kugu simaynaa, annaguna garabkaadan taagannahay. bulshada reer Kaaraan gudoomiyaha cusub soo dhaweeya la shaqeeya. munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Kaaraan Abshir Kaaraan, waxauna ka dalbaday shacabka ku dhaqan degmada Kaaraan ee wax ka tabanayo inay iska cafiyaan, waxaana sidoo kale ugu baaqay gudoomiyaha cusub ee degmada Kaaraan in howsha oo halkiisa uu ka sii wado isla mar ahaantaana ay la shaqeeyaan shacabka ku dhaqan degmada Kaaraan. mudane gudoomiye Kaaraan qof xanuunsan oo meel jiiftay ahayd shalay, sida aan u daadaaweynay in dhan ma lahayn way soo kacday, hadda way istaagtay, laakiin inay socotay rabtaa meesha u socoleedna ma taqaan. waxaan codsanaa mar labaad iyo mar saddexaadba in saaxiibkay Faarax Cadaani ee Bowgay waxaan rabaa meesha ay u jihaysan yihiin oo gacanta ugu haatiyay inay aadi doonaan kuna daysan doonaan meelaha uu asaga ugu baaqa ama aragtidiisa naqato uu ku hogaami doono inay ku raaci doonaan.